بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر علي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمنا وزدنا علما، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصدا وقصة ضبطة وعجيب بضن ودروس قف والبرة والمسؤولين النقضة. مسؤوليتنا درجة قوني ملحا مرهدد مسؤول نقطه إلهي سبحانه وتعالى وحكوي دينا يا وحق المسؤول كاهي. كلكم مسؤول وحديث عنها رسولك عليه الصلاة والسلام. لما أنتين مسؤول باتين قف بميل ومسؤول كيه. لكن هل كان حنكغشة كان يا قصة أو مدحوينة أو ودماء فربضا أما خليفة المسلمين ده مدح oo akauntigiisa markuu dhimanayay laga helay oo kaliya 8 diinaar. waa hal wadan ma xukumaynin, dhowr wadan isku xukumay. waa khaliifka culimada muslimiinta ay ugu magac dareen al-khaliifatu al-khamis, khaliifkii shanaad dadaalkiisa oo u dhawaa kii asxaabta oo kale. لكن صحابي ما هن تابعي وها haddaan soo koob qisadiisa oo ah qiso duruus badan aan ka qaadan doono hadduu ilaahay yiraahdo. wuxuu ahaa khaliif ama madaxweyne caadil ah, doorsoon, khiyaano aan aqoonin, xatooyo aan aqoonin, alla ka cabsi badan. waxaana ku wareegsanaa waxaa la qiyaasay ilaa 70 oo culimmada muslimiinta ayaa la taliyaal u ahaa. waxaa la yidhahdo bitaanatu saalixa. markaad doorato la taliy inuu kuu noqdo tuug, khaa'in, musuq maasuq mid yaqaana, eex badan, qabyaalad ka buuxda, waxa shaqadaada waxay noqonaysaa ama reflection waxaa la yidhahdo shaqadaadana noocaasay noqonaysaa. markii aad la taliyo aad ka dhigato in ilaahay ka cabsanayo, ahlu salaad ah, xalaal quudata ah, isla markaana adigana ilaahay ku xusuusinayo maalintii 24 saacadood maxaa kaa khaldamay ku dhahayo, waxaasaa kaa khaldamay aan kaa qaranayn, runta kuu sheegayo. markay wax kuu saxmaan ku leeyahay waxaasoo khayraa samaysa alxamdulilah dheh. haddii wax kaa khaldamaana waxaasaa kaa khaldamay istakfirullah dheh. haddii xuquuqul insaan ay tahay inuu ku dhahayo qofkaas xaqiisa caawo u celi, ha seexan. la taliya noocaasoo kale aad u baahan tahay markaad madaxweyne tahay, markaad prime minister tahay, markaad tahay ra-iisul baarlamaan, markaad madax sare aad tahay. ninkan ama khaliifka haddaan ka hadlayno intaas isku wareejiyay. qisada sidaanay ahayd iyadoo kooban. khaliifkan waa sheegi doonaa magaciisa. waxaa madaxweyne loo doortay al-Mansuur. wuxuu ahaa nin rabay markii la doortay maalinteedii ayaa dadkii soo booqday waxaa ku jiray nin caalima oo la yidhaahdo Muqaatil ibnu Sulaymaan oo sheekh ahaa. marka fursaduu ka dhigtay ninkan madaxweynaha loo doortay al-Mansuur. ninkan wuxuu ku dhahay iyagoo culimmadaad ka mid tahay ii dardaaran, mas-uuliyad weyn aan gacanta la ii geliyey. dadkii hore saasay u fikeri jireen, culummaday ka agdhawaayeen ama culummaday raadsan jireen. macnaha dad shisheeyana ma raadsan jirin, dad xigtadiisa oo qabyaalad ahaan uu kusoo dhaweysanayo ma raadsan jirin. inkastoo qof qaraabo aad tihiin hadduu caalim yahay ama hadduu shaqo mutakhasis ku yahay aadan ka cabsanayn inaad adeegsato oo wax dambi aysan ku jirin haddii shuruudihii uu buuxinayo waayo ummadaasu ka mid yahay. laakiin ninkan al-Mansuur
ninkan markuu arkay wuxuu yidhi ii dardaara. ninkan wuxuu yidhi su-aal cajiib badan u weydiiyey marka sheekhi. wuxuu yidhi ma waxaan kula dardaarmaa, ma waxaan kuu sheegaa maa samictu, ama waxaan kuu sheegaa maa ra'aytu? waxaan maqlay maan kuu sheegaa, mise waxa ana indhahayga aan ku arkaan kuu sheegaa? ninkan almansuur wuxuu ahaa nin caqli badan. marka wuxuu dhahay, waayo ana haddaa iweydiis maanta maxaad maqashay? wax fara badanaa maqlay. waxaan maqlay waxay isugu jiri karaan run iyo been iban, ma kala sooci kara marka qaarkood, sababta qof aad aaminsan tahay inuu runnow yahay hadduu been kuu sheegay xitaa waxaad u haysataa inay run tahay. marka maalintii waxyaalo badan ayaad maqashaa. idaacadaha wax ka maqashaa, youtubeda wax ka maqashaa, social media wax ka maqashaa, meel kasta oo war ka soo baxa waad ka maqashaa. marka wax badanaad maqlaysaa, laakiin waxaad aragto oo adiga markhaati indhahaaga ay ku dhacaan way yaraanayaan, waayo aday kugu kooban yihiin. marka ninkii caalimka ahaa wuxuu dhahay, ma waxaan arkay aan kuu waramaa, mise waxaan maqlay? markaas wuxuu yidhi waxaad ii waramaysaa oo aad ii sheegaysaa waxa indhahaaga aad ku aragtay. wuxuu yidhi niyahow, waxaan arkay uu dhahay madaxweyne khaliifatulmuslimiin oo marka uu dhimanayay uu ka tegay 18 diinaar oo keliya. waana ninka aad taqaanuu dhahay, caalamka dhan laga yaqaano, warkiisa meel kasta yaallo, oo cadaalad adduunka gaarsiiyey, dhulkii farax badnaa uu madaxweynaha ka ahaa, nabadna uu gaarsiiyey. ninkaasi wuxuu ka tegay accountigiisa laga helay 18 diinaar. waa cumar ibn cabdilcasiis uu u sheegay. wuxuu dhahay waxaan arkay oo goobjoog aan u ahaa in 5 ka mid ah 18 diinaar kafantiisa lagu gado u dhahay. marka 18 ka jar meeqa hartay? 13. wuxuu dhahay 4 diinaar ka mid ahna qabrigiisa lagu qodo u dhahay. maxaa hartay? 9. wuxuu dhahay 11 wiil uu dhalo u dhahay. 11 wiil uu dhalay. wuxuu dhahay marka waxa u haray 9kaasi diinaar ay noqdeen, ayaa waxaa la yidhi ilmahaaga maxaad kaga tagtay? waa madaxweynihii dhammaa wadamada o dhan madaxweyne u ahaa. wuxuu waxaan kaga tegay taqwa allah, lacagti ma sheegin. anaa waxaan baray alla ka cabsi. markaasaa wuxuu yidhi hadday noqdaan saalixiin kuwa ilaahay ka cabsado, faallahu tacaala yatawalla asaalixiin. saasuu dhahay, ilaahay ayaa umuurahooda iyo shu-uuntooda ilaaha tawalinaya. macnaheedu waxaa waaye ilaaha ka warhaynayo, marka aniga iima baahna. ilaah waa khaaliq, ilaahay waa xay daa'im, ilaahaasa ka warhaynaya. wa in yakunuu gayra dalik uu dhahay, marka hadday noqon waayaan kuwa toosan oo saalixiin ah, ma ka tegayuu dhahay lan atruka maalan, maal kagama tegaayo, oo maalkaasoo yuciinuhum cala almacsiya, oo macsiya ay ku samaynayaan. waayo haddii ilmahaaga maal aada ugu tagto ay kaa dhaxlaan oo macsi ay ku sameeyaan, way ku taabanaysaa, qabrigay kugu taabanaysaa. markaasi ayaa wuxuu yidhi waxaan kaloo indhaheyga ku arkay, hadda waa 11 oo 9 diinaar keliya, laakiin wax ka weyn ugu tegay. waa taqwada ilaahay subxaana wa tacaala uu baray, uu tarbiyey tarbiya islaamiya, wax loo dhiga ma laha oo qiimo ah. waxaan kaloo indhaheyga aan ku arkuu dhahay hishaam oo ibn cabdilmalik, oo isagana ahaa khaliifatulmuslimiin. waxaan indhaheyga ku arkay 11 wiil oo uu ka tegay markuu dhintay, mid walba wuxuu u dhaafay 1 milyan oo diinaar. farbadnaanta lacagtaasi 1 milyan diinaar maanta maxay u dhigantaa? wax aad u fara badan. mid walbaba 1 milyan oo diinaar ugu tegay u dhahay. wuxuu yidhi ninkaasi madaxweynaha ah
hishaam la yidhaahdo wax ilmihiisa uu baray oo ah tarbiya iyo diin iyo taqwa iyo inuu soo saaro oo culummo uu ka dhigo oo alla waddadiisa hayo oo uu kaga tegay ma jiro, laakiin lacagtaas farax badan uu kaga tegay madkayba. wuxuu yidhi adaa i weydiiyey waxa indhahayga aan ku arkee, hal maalin waxa indhahayga aan ku arkuu dhahay, waa markay labadaba dhinteen, waxna indhahayga ku arkuu dhahay iyadoo jihaad loo ururinayo tabarucaad iyo sadaqo. waxaan ku arkuu dhahay 11 oo uu dhalay cumar ibn cabdilcasiis oo uusan waxba u dhaafin oo aan ahayn maxay taqwa allah. waxaan arkuu dhahay mid ka mid ah oo maalin keliya sadaqaysanayo 100 faras. hal faras maaha, ya 10 faras maaha, 15 maaha, waa 100 faras. halkii farasna waagaasi meesha annaga oo geela uu noo joogay iyaga waxaa u joogay faraska iyo geela. 100 faras u dhah hal maalin hore. isla maalintii oo 100 faras uu sadaqaysanayay mid iyaga ka mid ah waxaan arkay 11 uu dhalay hishaam. waa madaxweynihii wax isku qasay, waa khaliif oo maalkiisii aan la kala ogeyn meeshuu ka keenay iyo wuxuu yahay, oo 11 milyan oo 11 wiil u dhaafay. wuxuu yidhi mid ka mida wiilasha waxaan arkay oo guryaha xaafadaha tuugsanayo. walciyaadu billaah, ilaaha ka magan galnay ilmahan inay tuugsadaan. waa ninkii milyaneerka ahaa oo madaxweynihii milyaneerka ahaa oo ilmihiis iyagoo milyaneer kaga tegay waxay tuugsanayaan guryaha. waa masaakiin oo qarsoon. wuxuu dhahay indhahaygan ku arka u dhahay kaasna. marka waxaan rabaa u dhahay qisadaan inaa cibro ku qaadato oo maalka muslimiinta madaxweyne maadaama aad tahay, adiga iyo kuwa kula shaqeeyaba maalka muslimiinta aada iska ilaalisaan, ilmihiinna aad ka ilaalisaan maal xaaraam ah. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.